السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن داوضيال كسر دوادا ميل كستواد عالم كجوكتان تي فيجا إليس وعن آلابا نغلس عطان شبكة إنترنتك قد بدأ الذين هاينا ما أنت واحد كمدا ورر برنامجيو كاسو كصابسن هوين كأوجادين يا وشنوقة فرمي عالمية مقالة كوبنهاجن وده كردن ماك داوضيال markale ku soo dhawaada Ilays TV waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo Cabdirasaaq Maxamuud iyo Leila Xasan. haddaba waxaanu maanta idinku haynaa wixii war dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobadii ugu doorka roonaa waxaana idin daadihinaysaa Leila. aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq. qodobada warka aan idinku hayno waxaa kamid ah digniino laga soo saaray maalgashiga Itoobiya. mahdaba aan la garanayn oo ku soo batay caasimadda Jigjiga. khilaafaadka biixideenka Niil oo cirka isku shareeyay. intaas daawadayaal waa qodobada intooda ugu door karoonayd aan se ku bilowno wararka jaalada Soomaalida ogaadeenaya ee dibadaha. jaaliyada ogaadeenaya ee wadanka Norway ayaa shirweynahoodii sanadlaha ahaa uu ku qabsamay oo ku doortay maamul cusub oo uu gudoomiye ka yahay mudane Khaliif Cabdi Cali. sidoo kale waxaa halkaasi loogu doortay xogayaha ururka OYSU oo lagu doortay mudane Cabdiqaadir Khaliif oo faraca ururka dhalinta OYSU ee Norway. wararka kale laga soo gaaray jaaliyada ogaadeenaya ee dibadda ayaa waxa ay sheegayaan abwaanada weyn ee Roda Afjano inay socdaal iyaduna ku marayso qaaradda Yurub iyadoo oo ka qayb gashay shirweynaha haweenka Soomaalida ogaadeenaya. socdaalkan abwaanada waxa ku weheliya wafdi uu kamid yahay abwaan Maxamuud Cabdi Cumar Jango iyaga oo socdaalkan abwaan Jango ay ka soo bilaabeen wadanka Norway. haddaba waxa ay ku dambeyn doonaan sida la sheegayo wadanka Denmark iyo Sweden. Leila adiga ayaa dumarka caan ku ah iyo gabayada Roda Afjano waxaan u maleynayaa inaad waayaara ku tahay maxaa dadka uga haysaa ها عبد الرزاق abwaanada Roda Afjano oo ah abwaanad aad looga jecel yahay geeska Afrika waxay caan ku tahay suugaan iyo gabayo ay ku baraarujisay halganka Soomaaliyeed gaar ahaan midka Soomaalida ogaadeenaya meel kastaba ha joogan dadku ee magaci Soomaali maraagiyo in caynkii u go'ay muran la weeyaane masiibadan qaraariyo duliga aan dhaxmiranayno laynala ma maagine waxaan mudanay weeyaane milicsada inaan garanno waa lagama maarmaane. waxaan abwaanada si diiran loogu soo dhaweeyay wadanka Denmark. jaaliyada Sweden ayaa abwaanad ku beegan tahay 3 January halkaas ay ku qaban doonaan bandhig loogu magac daray bandhigii boqorka dhaantada iyo soo dhaweyntii abwaanada Roda Afjano. sidoo kale daawadayaal ururka dhalinta OYSU ee wadanka UK ama wadankan Ingiriiska ayaa taariikhdu marka ay tahay 3 January waa sanadka soo socda insha Allah ilaahay barwaaqaha inuu gaarsiiyo 2015 soo sidaa ma halay aad iyo aad waxa ay u qaban qaabinayaan kulan ay sameynayaan carruurta oo u sameyn doonaan show ama si ay dhaqankooda u baraan dhalinyarada da'dooda u dhaxayso 10 ilaa 18 sano wuxuuna ka dhacayaa hoolka xafladda jaaliyada ogaadeen ee London sabtida 3 January 2015. daawada halkaas waxaa noogu ekaa wararka aan idinka haynay jaaliyadaha Soomaalida ogaadeenaya ee dibadaha. haatan aanu gudubno qaybihiisii kale. digniino cusub oo ku aadan maalgashiga wadanka Itoobiya ayaa laga soo saaray iyadoo aad looga digay dadka xiisan inay wax maalgashadaan inaysan maalgashan wadanka Itoobiya gaar ahaan qorshihiisa maalgashi ee bondka. digniintan ayaa waxa ay qeexday sababo dhowr ah oo khasaaro badan ku keeni karta ama laxad leh cidii doonaysa inay maalgashato wadanka Itoobiya. warbixintan ayaa waxa ay qeexaysaa qodobka koowaad inuu yahay gaajo ka jirta wadanka Itoobiya dagaal naafeeyay iyo xasilooni darro siyaasadeed oo wadanka Itoobiya maanta ku habsatay. macluumaadka digniinta ayaa waxa uu sheegaya isaguna uu qeexaya sababo tiro badan oo Itoobiya aan loo maalgashan karin taasoo ay kamid tahay Itoobiya inay tahay wadanka adduunka ugu saboolsan ee bond samaysta dagaalkii weynaa ee ka qarxay Itoobiya Eritrea abaaro ka jira wadanka Itoobiya isdaba jooga gaajo iyo saboolnimo aan kaba dhamaanin dalkaasi Itoobiya mar walba wadanka Itoobiya oo aan lahayn bad
iyo cabsi laga qabo in ay isku dhacaan waddanka keliya ee hadda dekadiisa wax kala soo degaan oo ah Djibouti. Ethiopia oo ah kaalinta ugu hooseysa kaga jirta markii la tiro koobay caalamka saboolnimada wadamada horumarayna waxa ay sheegeen boqolkiiba 3.7 boqolkiiba 87 inay tahay Ethiopia mid ugu hooseysa ee salka kaga jirta wadamada horumaraya caalamka. cabsi weyn oo laga qabo dagaalo iyo carqalado siyaasadeed oo ka qarxa Ethiopia gaar ahaan doorashada Ethiopia 2015 oo sababta looga qabatana waa maxay leeyahay in ay ka qarxaan dagaalo sababtoo ah Tigreegu sida caadada ahayd waxay doonayaan inay ku shubtaan boqolkiiba 100 doorashada soo socota oo ay yiraahdaan waxaan caalamka ka dhicin boqolkiiba 100 baa la doortay ra'iisul wasaaraha iyaga iyo madaxweynaha iyaga iyo baarlamaanka ku soo galay boqolkiiba 99 iyo waliba nus. taasina waxa ka diyaar garoobay shucuubta Ethiopia oo diiday in mar walba ay ku shubato shucuubta Tigreegu oo ay hal qabiil iska xukunto. taasina waa cabsi siyaasadeed oo laga qabo inaan Ethiopia aanay marnaba ahayn mid degan. haddaba bangiga Ethiopia oo ah midaan awood u lahayn inuu ilaaliyo koruqaadda hoos u dhaca iyo waliba lacagta birta ah ee uu isagu leeyahay dhaqdhaqaaqeeda taasoo ay ku tiirsan tahay baa leeyahay bangiga Ethiopia iyo dhaqaalaheeduba dayn ay ka qaadato waddanka China oo ah waddanka kaliya ee ku haray markii ay wadamada reer Yurub cunaqabataynta saareen. qodobadan iyo kuwa kale oo badan ayaa waxa la leeyahay ayaan Ethiopia looga digayaa dadyowga doonaya inay wax maal gashadaan oo doonaya meel nabada iyo dimuqraadiyada. khilaafaadka biyo-xidheenka Niil ayaa cirka isku shareeyay kadib markii dowladda Ethiopia isku dayday inay kordhiso waqtigii la filayay in la soo gabagabeeyo proposalka cilmi baarista khibrada eegaysa dhibaatada uu keeni karo biyo-xidheenka Niil oo la rajayn la soo afjaro 3 December. mahadsanid Leila, wax badan baan kaaga hayaa warbixintan. aan ku bilownay dowladda Ethiopia ayaa isku dayday in ay diblomaasi isku dayday in ay ku xaliso iyadoo kala dirtay boqolaal wafdi oo caalamka ay u dirayso siiba waddanka Masar si ay uga kulmaan madaxda waddanka Masar iyo uqaasha waddankaasi si ay uga dhaadhiciyaan in biyo-xidheenka Niil dhibaato una ku keeni doonin biyaha waddanka Masar. haddaba khubarada iyo warbixinta ayaa waxa ay sheegaysaa in biyo-xidheenka Abay oo waddanka Masar u yahay muhiim una u horseedi karo biyo yaraan iyo kacdoomo cusub oo siyaasadeed haddii aan laga baaraandegin qorshaha biyo-xidheenka Ethiopia oo hadda dhismihiisu marayo boqolkiiba 40 wax ka yar. Professor Paul Sullivan ayaa warbixin uu ku soo saaray ku sheegay biyo-xidheenka Ethiopia in uu yahay mustaqbalka midkii horseedi lahaa nabadgelyo ama dagaal iyo colaado ka qarxa gobolka biyaha geeska Afrika. waxaa loo adeegsan karaa horumar waxayna noqon karaan aalad dagaal. waxaa la joogaa waqtigii khilaafka biyahan nabad si ah loogu soo xalin lahaa. daawadayaal magaalada Jigjiga ayaa waxaa waayadan ku soo kornay marxalad cusub oo aan horey loogu arki jirin waddanka iyadoo oo lagu arkay madhabo cusub oo diineed oo la sheegay in lagu arkay caasimadda magaalada Jigjiga. madhabtaas ayaa waxaa la soo jeediyey in ay wataan maamulku sheega u adeega gumaysiga Ethiopia waxaana la saaray cunaqabatayn lagu soo rogay culimada diinta iyo masaajidii oo loo diiday in culimadu ay uga digto dadka ama bulshada Soomaaliyeed ee ogaadeenaya oo aan horey loogu aqoonin deegaanka. madhabtan ayaa waxaa la sheegay in labadii sanadood ee u dambeysay aad loogu arkayay waddanka iyadoo oo sheekhyadii ka hadlayna xabsiga loo wada taxaabay habeenimo madow. aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane Cabdirasaaq. daawadayaashaas waxaa nooga ekaa wixii war aan ka haynay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. haatan waxaad ku soo dhawaatay warbixin aan ka soo diyaarinay kaalinta haweenka Soomaalida ogaadeen iyo shirweynihii haweenka Soomaalida ogaadeeniya oo ka furmay waddanka Denmark. hablahayagu waa dirkii hore hormuudideen laweyaane wixii diidi iyo diri dhulka daaficiisii loo hibeeyey dhiig badan dhuuxiyo haweenka u ahaa lafdhabar. daawadayaal sida aan wada ogsoonahay waxaa ka dhici doona shir weyn
magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark kaasoo ay isugu imaanayaan haweenka Ogaadeenaya oo ay ku wada tashan doonaan shirkaasi oo ah kii ugu horeeyay ee noocan ay ku qabtaan waddanka Denmark ama dibadda ama qurbaha ay ku qabtaan kuwaasoo ka imanaya caalamka daafihiisa shantiisa qaaradood. haddaba waa wax lagu farxi karo daawade waxqabadka haweenka Ogaadeenaya waa mid aan la soo koobi karin. haweenka wadani weeye wadnaha bulshada weeye kuwa weerka qaatay weerarka gala weeye oo wallahan ku dhaartay kuwan weecan weeye gobonimo dhameystiran hidda dheeman oo lumi waa dhaxal awoow oo dhaqan baad u leedihiin oo dhigin waad u sidatiin. waa kuwa ka qayb qaata horumarka qoyskooda korinta ilmahooda baridda adaabta daryeelka caafimaadka intaa waxa u dheer iyaga oo ku nool dal uu gumaysto haysto kana qayb qaata siday xornimo u heli lahaayeen kaasoo gumaysigu ugu geysta tacadiyo fara badan oo ay ka mid yihiin kana dhana xuquuqal insaanka ama xuquuqal aadamaha. bulshada reer Ogaadeenaya waa bulsho uu haysto gumaysi manaxa oo macangag ah waana bulsho maaragtay culays badan iyo dhibaatooyin badan oo kala duwan ku jirta. marka gabdhaha anagu waxa way dhiban yihiin xabsiyada lagu kufsadaa muxuu ahaa way xidhan yihiin way ku dhaxdhalaan xabsiyada waa lagu dhaxdhibaa waa lagu jirdilaa yaani wax la soo koobi kara ma aha waxa shacabkanaga ku dhaca siiba gabdhaha reer Ogaadeenaya mana noo kala socnaa anaga gabadh iyo qof weyn oo marwa iyo hooyo waayeela iyo ayay wax ka siman weeyaan dhibaatada shacabkanaga haysata siiba gabdhaha reer Ogaadeenaya. waxaan leeyahay walaalayaal lama helo gobonimo aan loo dhimanin loo dhibaatoonin loo rafaadin lama helo gobonimo aan loo dhimanin loo dhibaatoonin maaragtay dad badan u curyaamin dad badan maaragtay aan u baabi'in aan dad badan u qixin. marka waddan kasta oo gumaysi ka xoroobay oo adduunka ku yaala shanta qaaradood dhibka ina haysta iyo mid maaragtay ka badan ayuu maraa. marka waa inaynu sidaad horeyba ugu adkaysateen waa inaan u adkaysano dhibaatooyinka shacab ahaan inoo soo gaarhaya yaan leeyahay shacabka reer Ogaadeenaya inaanu aad u dulmanahay inaan aad naloo eegaynin inaan waxa waddanka gudihiisa ka jira cidi eegaynin waxaan leeyahay dad bilaadan aan nool oo qaaradda Afrika ku nool in wax si degdeg ah looga qabtaan rabnaa 70 sano ka hor ilaa hadda dhibaatadu waa mid saamaysa waa mid habeen iyo maalinba ay dumarka Ogaadeenaya u taagan yihiin kufsi iyo dhac iyo dil waa mid aan laga hadlayn waa mid aan saxaafad loo ogolayn waa dumar dulman oo aad iyo aad u cadiban. waxaan ka codsanaynaa Ingiriiska maanta lagu shiraya inuu qadiyadayada hoos u eego oo dumarka dulman ee rafaadsan iyo caruurta dhibaataysan ee ceelasha lagu gurayo in wax laga qabto si degdeg ah. sidaas oo ay tahay haweenku waxa ay u taagan yihiin mideynta bulshada iyo la dagaalanka gumaystaha iyaga oo aan marnaba ka daalin dhaqdhaqaaqa xornimo doon oo ay keeneen meel lagu faani karo laguna hiran karo maanta. ururka haweenka haweenow dumarow anu aan ka kowyahay shaqo badan baa noo yaala miyaanay mudnayn in la xuso loona sameeyo maalin taariikheed daawade la xuso. haddaba Ilays TV waxa uu hambalyo u dirayaa shirka haweenka Ogaadeenaya ee Copenhagen midkaasi oo maanta ka dhici doono oo ay jimco tahay 26 bisha 12 2014 ka furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ama Copenhagen. waxaanu u rajaynaynaa mid midho wanaagsan dhala oo bulshadu ay ku soo hurato. bulshada Soomaalida Ogaadeenaya meel kastoo ay joogaanna waxa ay u dirayaan hambalyo iyo salaan iyo hibo iyo duco iyo waliba bogaadin. urur weynaha haweenka Soomaalida Ogaadeenaya maanta waxa ay u tahay maalin farxad leh oo lagu faani karo iyo maalin ay taariikhdu xusi doonto kana nixin doonto qof kasta oo cadow ah. ciidankoo gobtaaniyo gaajiyo haraad qaba ma goyaan gabdhuhu inay gobol ku seexdaan way u guuragalayaan una galab caraabaan goobta u hoyday cuntada u geeyaan dhaxda udub ku mudanoo mar qurayta dheeliin dhabtii iyaga weeyaan dhiiranaha halgamayana ayagoo ku dhaataa hablahayagu ahaa dirkii horeyo hormuudidee laweeyaane hablahayagu ahaa dirkii horeyo xornimo hamigooda weeyaane. daawadayaal waxaa intaasi inoogu eeg barnaamijkii maanta aan idinku talagalnay ee Ilays TV ood inta badan nagala socotaan shaashada internetka ama TV-ga. intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijka mid lamid ah waxaan idin leenahay
daawadayaasha qiimaha iyaga iyo qaayaha balahow kulanti dambe oo wacan sidaa iyo nabadgelyo ammaano allah iyo ammaano rasuul kulanti dambe oo wanaagsan wala isku goy gambala isku noqon wale wala isku goy gambala isku noqon wala isku goy gambala isku noqon wale wala isku goy gambala isku noqon dagaalku yimi gandaha oo laga gardaran yahay gadaalo gama baxee dagaalku yimi gandaha oo laga gardaran yahay gadaalo gama baxee gumaysigii ciidayada geediga ku soo galay wale wuu ku guban gumaysigii ciidayada geediga ku soo galay wale wuu ku guban wale goondar iyo maqale ilaa goonyaha aksum qaroortu way gaadhiyo anjidu diida way hay wale goondar iyo maqale ilaa goonyaha aksum qaroortu way gaadhiyo anjidu diida way hay dadkaygii guyal badan iyagoon dembiba gelin kumuu googoynaye kibirka lagu dhumaaday dadkaygii guyal badan iyagoon dembiba gelin kumuu googoynaye kibirka lagu dhumaaday wale guushu way u hadhi wale guushu way u hadhi gobaa noqon wayaanahan gumayn anoo balgoraya xiran xorniman ku gardiye gobaa noqon wayaanahaad gumayn adoo balgoraya xiran xornimaad ku gardiye gobaa noqon wayaanahan gumayn anoo balgoraya xiran xorniman ku gardiye gobaa noqon wayaanahaad gumayn adoo balgoraya xiran xornimaad ku gardiye